أنا كم حال يحرق أنا واحد نقضي دبيجي اللي يري إنه دبيجي أسكعنه مركي الله قلاده أي برشة إن أنا كل جاي اللي يعنه كتاب القرآن الكريم كي وحي الله محكمة ده لكن وحي الله هل قضب ويا الله وحي الله مركل لقو دارني وحكلان ومارك مركل قفك لقو دارني يدارو كتابك عن تصار بالقرني نمك ما معارضي محافظ شيغانيا حدينو كدغنو وش كستبين يجيهين وعي وهميات سميسي وحما كما جيران ولا نولشو انتا كبلار نولشو ما dadku ma wada raadinayaan kuraasida nimankan raadinayaan arrimo kale oo muhiim ah jira hadii uu jiri lahaa warbaahin awood u leh inay muxuu gaadho dalalkaas nabigu sallallahu alayhi wasallam ma adeegsan lahaa warbaahinta uu adeegsan lahaa xabsigan ka yimi walaalayaal maxaabiistii ku jirtay dhammaantood waxay ku xukumnaayeen oo ay jeelka ugu jireen qodobada xeerka ciqaabta nin walbaaba qodob buu ku xidhan yahay mid lagu yiri aayad baa ku xidhay ama xadiis baa ku xidhay ma jiro waa arrin halis ah inaad ehelkay tihiin dadkaygii tihiin garabkayga tihiin adigu macallinkii baa tawriya tahay waxa tahay ninkii muxuu ahaa wuxuu sheegay qof walba adigu ku dhageysanaya saameyn weyn baad ku leedahay bulshada marka erey bixinta aad gudbinaysid hadday tahay mid aan islaamku shuqul ku lahayn ama ka dhan islaamka way qaadanayaan dadku marka waxa walaalayaal bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا كم هاد علينا إياه مناسبة آديقو يردان سياديقو ماموستان يقول نسو دويسان رنتي وحوية معنوين بيجي سمين إساه walaaltinimo ayay dareensiinaysaa inaad ehelkay tihiin dadkaygii tihiin garabkayga tihiin ayay dareensiinaysaa runtii ma yara in warbaahintii Hargeysa oo aynu odhan karno waxay matalaysaa warbaahinta dalka oo dhan inaad halkan igu maamustaan anigoo shalay oo khamiisa ka soo baxay xabsiga ilaahay khayr haydu ku abaalmariyo ilaahay haydin karaameeyo ilaahay haydin sharfo dhammaantiin waxa maadaama aynu sunnimi waxaan doonayaa in aan idin xasuusiyo qodobo aad u muhiim ah oo khuseeya shaqadeenna warbaahineed si aynu u kala faa'iidaysano oo kooban walaalayaal muhiimadda ay saxaafaddu leedahay waa inaynu mar walba is xasuusinaa saxaafaddu awood bay leedahay saameyn weyn bay leedahay waxa saxaafad aan doonayaa tusaale nool aan idinka keeno aniga isu tusaaleynaya waxaa laygu xukumay sanadihii 2017 ilaa iyo hadda marka la isu geeyo 2 sano mar 3 badh mar 2 sano marka waxay noqonaysaa isu geynta 7 sanadood iyo badh bay noqonaysaa maxaan sameeyay kaliya waxaan adeegsaday awoodii warbaahineed sida baahintii baraha bulshada ayaan adeegsaday wa quwadda ay leedahay ayaa sababaysa xariga marka awoodda inay leedahay baan doonayay inaan dareensiiyo taas sababaysa in qof loo xidho muddo 7 sano iyo badh inaad maanka ku haysan inaad awoodda leedahiin awooddiina garta xagga wanaagsanna uga adeegsada walaalayaal xilligii nabiga sallallahu alayhi wasallam waad ogeydeenoo markuu boqoradii iyo madaxdii adduunka nabigu sallallahu alayhi wasallam fariinta islaamka gaarsiinayay waxa uu dirayay rusul fariin sidayaal buu dirayay nabigu sallallahu alayhi wasallam safar dheer galaya intay ka tagaan magaaladii nabiga sallallahu alayhi wasallam almadina oo ku taala alxijaaz ayay muxuu ahaa mid walbaaba meel tagay dacalada caalamka boqoradii ruum qaysar boqoradii
فارس كسرى كوي مصر ميل والبا فرينت النبي صلى الله عليه وسلم بقادين سفر دير بقليين واحد صورتان هدي وشري لها ورباهن أودوا له إنه يبنوها هاي قاعدوا دلال كاس النبي صلى الله عليه وسلم ما أديك سلها ورباهنته وأديك سلها هل كقدر لها توس مقلية مقالبة وضهد لها يعني بقرضة هي مدحداس مقلية مقالبة توس وقلاد لها تليفون بوديك سلها تلفزيون بوديك سلها هل كقلاد لها النبي صلى الله عليه وسلم دعوته مركا واحد وقاتان واحد هيسان الصحافة دي سفر هذا اللوج اللي شري وركي لجالسين شري سفر كده تعب كوب شري أياد مو هيسيف فضود أدو هيسانو إذن كم هو إذن أدو حلسا إذن كأو حلسار وحندونينا إن أيضا أرهن ضحك النقن هدياتهم ورباهنته أرهن كإسلام كهدو أرهن كإسلام لحيره وحوي جرجرتن مجليو متى دحدحات أدو مسلم باتاي دين بعد لا مركا أرهن كإسلام صاقله وحوي جرجرتن مشرو والسدا aynu ognahay maadaama wadaniyad ummadda muslimiinta adduunka joogta wadaniyad lagu abuuray oo laga saaray diinta iyadoo diinta lagu la dagaalamayo ayaa wuxuu oranayaa ninka wariyahay wadanka markay wadanka noqoto wadankan taageeriya ku noqonaya wadan way adigu markay islaamka gaadho waa in islaamka dhinaciisa taagnata marka ma jirto waxa la yiraahdo warbaahintu dhexdhexaad bay tahay arrimaha dhexdhexaad ka tahay ay tabinayso laakiin markay islaamnimo noqoto dhex ma istaagi kartid لا يوجد عدم الانحياز وحويه وين محوها أين إسلام كلقى دحركا أما دين عيسى لقى أركاين التاجنتاي تاسو حويه ودردارنا عندنا كل دردار مية والله يا الواحد شرب موضوعية مهمة ما دام ودور باهنتي تهين وإنه يسني معاوة عندوني حساسية دمانتين برنامجية وباهن إن وثائقي لقى ديارية وثائقيات دوكومنترية لقى ديارية oo la xiriira arrimaha islaamka oo aad u muhiim ah waxa kamid ah walaalayaal yani barnaamijyadaas waa arrin aad inoo taabanaya oo aad idinku dadkii fahansiinaysaan tusaale walaal waxa jira maxkamadaheena waxa yaala wax loo yaqaan xeerka ciqaabta oo dadka lagu xukumo waa dhigana gudihiisa wax lagu xalaaleeyo lagu xaaraantinimeeyo kaas oo kale wuxuu u baahan yahay inaynu barnaamij ka diyaarino documentary ka diyaarno imika xabsiga aan ka yimi walaalayaal maxaabiistii ku jirtay dhammaantood waxay ku xukumnaayeen oo ay jeelka ugu jireen qodobada xeerka ciqaabta nin walbaaba qodob buu ku xidhan yahay mid lagu yiri aayad baa ku xidhay ama xadiis baa ku xidhay ma jiro waa arrin halis ah marka xaaraantinimeynta iyo xalaaleynta ilaahay baa iska leh kitaabka quraanka kariimka ay wuxuu yaalaa maxkamadaha laakiin muxuu yaalaa hal qodob buu yaalaa wuxuu yaalaa marka lagu dhaaranayo wax kale anigu ma aragba marka qofka lagu dhaaranayo dhaarun kitaabka gacanta saar baa lagu oranaya haddaad tahay eedaysane haddaad tahay marag kitaabka gacanta saar marka kitaabka gacanta saartid waa kitaab xidhan oo aan furnayn baad dusha gacanta ka saaraysa kitaabka gacanta saar waa lagu dhaaranayaa dhinacana la iska dhigaya kitaabkii laakiin qodobo ayaad ku eedaysan tahay qodobo ayaa maanta lagu akhriyayaa qodobka hebel xeerka ciqaabta guud marka anigu sanadaha la xidhay mar walba qodobo ayaan ku xidhnaa ilaahay alaya wax ilaahay bana xaaraantinimay marka waxaan doonayaa inaad mawduuca aad u banbaxdaan walaalayaal waxaan idinkula dardaarmayaa inaad ka digtoonaato adeegsiga erebixinada soo galeetiga ah haddaynu nahay muslimiin ina soo galay maaha waxa weeye inaad noqotid babaqaan noqotid shimbir ku celinaya hadalka la yiraahdo waa inaynu ka digtoonaana maxaynu isticmaalaynaa adigu macallinkii baa tahay wariyaa tahay waxa tahay ninkii wax u sheegayay qof walba adigu ku dhageysanaya saameyn weyn baad ku leedahay bulshada marka erey bixinta aad gudbinaysid hadday tahay mid aan islaamku shuqul ku lahayn ama ka dhan islaamka way qaadanayaan dadku marka wax walaalayaal waxaad ka digtoonaanaysaan erey bixinada halista ku ah yani diinteena islaamka iyo muslimiinta ay gaaladu sameeyeen insha Allah mar ayaan ka diyaarin doonaa erey bixintaas waxay yihiin ayaan insha Allah mar baan u bixin doonaa waana ku baraarujin doonaa bulshada walaalayaal idinku waxaad tihiin muraayadii la iska arkayay ha sameynina wacyi
waxba kama jiraan waxaa jira idinku wacyigaad samaysaan shaashadda aad daartaan ayaa wacyi noqonaysa qiimaha aad leedihiin ma yara waxaa dadka aad daawadsiisaan baa wacyiya markaa idinkaa u samaynaya haddii adduunkii ayd ka soo dhigtaan bulshada muslimiinta ee geygan ku nool haddaynu ka dhigno keliya nimanka isku haya siyaasadda ee le markana anaa jooga marka soo socdana anaa fuulaya xisbi iyo sidan nimanka mucaarad iyo muxaafad sheeganaya haddaynu ka dhigno wix kastaba inay iyaga yihiin wacyi wahmiyaad samaysay waxba kama jiraan walaal noloshu intaa ka ballaaran noloshu maaha dadku ma wada raadinayaan kuraasida nimankan raadinayaan arrimo kaloo muhiima jira kamaradaada meel kale u jeedi wacyi beenaynu samayn inay iyagu yihiin dadka ay tahay in laga hadlo ayaynu ka dhigno dadkaas markaa wacyigaas wahmiga ah iyo inaan daraf ka noqon ama aynaan dhinac ka noqon walaashay oo halkan ka hadashay ayaa waxay igula dardaarantay idinkuna si guud ahaanba waxaad igula dardaaranteen inaan arrimaha barnaamijka samafalka ka shaqeeyo iyaduna si gaara waxay igula dardaarantay waxay tidhi wixii dhibaato kaaga imanayso cabdimaalikow iska daa waxa weeye ehelkaaga hooyada iyo xaaskaaga waqti la qaaday tidhi ka bax bay tidhi dadkaasi waxa weeye way dhibaatoonayaan marka la xidho annaguna waan dhibaatoonaynaa bay tidhi waa hadal wanaagsan waxaan ka odhanayaa walaashay dardaarankaasi waa dardaaran wanaagsan laakiin waxaan odhan lahaa dhammaanteen haddii aynu baqno aynu ka baqno geeri ama aynu ka baqno xabsi aynu ka baqno in nala fogeeyo yaa u hadhaya ummaddan yaa xaqa sheegaya adduunkan baynu u joognaaba imtixaan baynu u joognaa imtixaan ah inaad adiguna dhibaatootid ehelkaaga kula dhibaatoodaan cid ku jecel kula dhibaatooto naf la waayo la xidho saasaa ku dhacaysay nebiga sala allahu alay wasalam magaaladiisii baa laga eriyey saxaabadiiba muxuuha lagu laayey diintan islaamka ayna soo gaadhay aynu maanta haysanno waxay ku soo gaadhay in muxuu ahayey xaqa la sheego walaalayaal dardaarankaasi waxa weeye waxaan ka odhan lahaa haddii aynu dhammaanteen wada hadallo aniga miyaa la xidhi lahaa aniga maxaa lay xidhay anigu waxaan noqday dibigii la yidhi aynu dibigaa iska cunnood waxa weeye wuxuu inoo soo jiidayaa bahalladu inoo soo jiidayaa markii la oggolaaday ay bulshada qaatay in aniga keligay la cuno waxa weeye waxaa dhacaysa in muxuu ahay dadka loo soo jeesto walaalayaal haddii aad diidi lahaydeen guud ahaan bulshadu hadday diidi lahayd in cabdimaalik la cuno oo aynu dhammaanteen aynu muxuu ahay xaqa iyo wixii diinta yani muxuu ahay ka dhana aynu ka hadallo waxa weeye cidna lama xidheen walaashayda qaaligaa waan dareemayaa waxa weeye dareenkaagu iyo cid walboo dareenkaa ii soo jeedinaysa waxaan dareemayaa inuu arrin wanaagsan yahay laakiin waa sax insha allah biidni illahi alkariim waa lagama maarmaan inuu qofku intuu ka badbaadi karo dhibta ka badbaado oo taa waan taageersana inta uu ka badbaadi karo uu naftiisa ka badbaadi karo uu ka badbaado waxaan ku soo gabagabaynayaa mar labaad walaaladeyda warbaahinta waad mahadsantihiin kulankan aad ii qabateen kolley waxa weeye saad sheegteenna waynu wada hadli doonnaa insha allah biidni illahi alkariim anigu waxa weeye idinka mid baan ahay idinkuna iga mid baad tihiin ana minkum wa antum minni waxa weeye ha oggolaanina anigana in si gaara lay saaro oo la yidhaahdo waxa weeye ninkaasi iska sooca wuu ka duwan yahay warbaahintii anigu waxaan ahay warbaahintii baan ahay wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu